السلام عليكم كسو دوادا بودكاستيغا sheekooyin mar walbo ilmo cusub raacaysiin maxaa rajaynaana inaa mar walbo wax cusub ka baratiin. waxay isku sheegayeen idriis wariiriyo cuna. ilmaha isku sheegayeen waqtiga qadada. sahra way maqashay ilmaha ay kooxamanayaan idriis. ilmaha maxay dhaheen waa nool ciyaari kartaa haddii aa xantada sii gudbisid. sahra aaday u xumaatay. idriis wiil fiican oo ahaay wayna ogeed inuu wariiri cuneynin. asi muxuu jeclahay zactar. ilmahana ma ogeen zactar muxuu ahaay. aaday rati inay ilmahaas ula ciyaarto. sahra u rukhmatay bilaawgii way dhihi waysay maxaa dhowsaa. saaraa dhahday ayuu ii sheeg. markii hadalkaas maqashay ayuu bay xantada sii gudbisay. isku waqtigaasbo aaday u shallaysay. idriis wasakhlo waaye. idriis wasakhlo waa wariiriya cunaa. dharkiisan wariiriya uu jiran. idriis wuu xanaaqsanay. wejigiisan way ka muuqatay. asi iyo sahra derisay ahaayeen. maryaal badanna way isla ciyaari jireen. markii ay hadalkaas dhahday kadib aaday u shallaysay. maxayna isdhehaysay mar labaad idriis ma kula ciyaari rabaa ama kale ma kula hadli rabaa. iskoolka kadib idriis hooyadiis macallimiinta maxay dhahday iidaa sahra soo wadi rabto sababtoo ah hooyadeeda shaqaday kusoo daahaysaa. sahra way ku xumaatay. hooyadeeday rati inay aragto. idriis hooyadiisa tinta sahray u salaaxday. maxayna dhahday say tahay quraxleey. sahra maxay dhahday waa fiicanahay ayuu weyjeysatay. maalintaasay tima raban inay guriga u raacdo. markii idriisna fiirisay ayuu ka jeestay asigoo baroobeynayay inuu ka fogaado. ma fiican tihiin ilmo wax walba oo caadi miya. idriis hooyadiisaa dhahday maanta aadaa u degan tihiin. dhibdhan ma jiro hooyo ayuu waa idriis dhahay. ani maanta ma fiicni hooyaday ma wici karaa. sahraa dhahday hay macaantu hay waa ku waca. idriis hooyadiisa waa barooweysay inay wacdo sahra hooyadeeda laakiin ma qabaneynin. awalwalin kalsooniyaa ku qabaa inay hooyadaa waxyar kadib noo soo celinayso. dhakhtarka iska sii aadno sidaa u fiirin caafimaadka. guriga dhinaciisuuna ku yaala. waxaa u tageynaa dhakhtarad faadumo. adii idriisba waa u tagtiin waa kasee. waa faraxsanaanaya inay ku caawiso. sahra waa isku sii xanaaqday. iyada idriis bisle ma dhibin haddana beenay sheegtay oo caafimaadkeeda ku saabsan. sahra dhakhtarad faadumo aaday u jecleed. mar walba markay u tagaan maxay sii jirta maamacaan iyo wax ay ku ciyaaraan. hadda maxay u sheegee been kale ma rabin inay sii sheegto. asalaamu calaykum kusoo dhawaada maanta maxaan iga caawi karaa. dhakhtarad faadumaa dhahday. idriis hooyadiisa maxay dhahday anagoo iskoolka kasoo noqonoono hal mar sahra xanuun dareentay. hay sahra intee ku xanuunayso. wejigaa jaarlo u egyahay. dhakhtaradaa dhahday. sahra wejigeeday ruuxday. waxay dhahday waaysay. dhakhtarada maxay fiirisay hadday qandhahayso. kadib dhagaheeday baartay. kadib caloosheeda xataa dhagaheeday baartay laakiin wax walba caadi u ekaay. warka wanaagsan maxaa waaye inaan wax walba sidii laga rabo yahay. caafimaadkaa ma fiican yahay. dhakhtarada mar labaad sahray weydiisay intee ku xanuunaysay. dhahday mar labaad. sahra maxay barooweysay inay ciyo u fikirto. lugaheeday farta ku taagtay. idriis hooyadiisa way yaabtay ma fahansaneen wixii sahra ku dhacay. caloosha ma ku xanuunaynin hadda ka hor. idriis hooyadiisa maxay barooweysay inay sahra xasuusiso. dhakhtarada markaas maxay weydiisay idriis iyo hooyadiisa hadday banaanka ku sugi karaan. dhib ma leh banaankaa ku sugeena. kaale idriis banaankaa ku sugeenaa sahra. idriis hooyadiisaa dhahday. idriis sahra u fiiriy markuu qolka ka baxay. indhaheedaa bilaaban inay ilmaan. markii albaabka la xireebo sahra inay ooyday bilaawday. maxaa dhacay macaanto adi ma fiican tahay. wax qalad weynaa sameeyey. maxaa saas u dhahoosaa. dhakhtaradaa weydiisay. tiisho ee u dhiibtay. sahrana dhakhtarada wax walbay u sheegtay. ani ma xanuunsani hooyadee bisaa rabaa. adiga wargeesiyaa tahay inaa runta sheegtay.
ani xataa adi camalaa dareemi lahay laakiin marmar kulligeena qaladaa sameynaa. waxa u fiican oo samey karna maxaa waaye inaan dhahno raali iga noqda oona weydiino waxa uu samey karaa lahayn sideena cafiyaan. Zahra madaxeeda way ruuxday, diifkani way iska tirtirtay. Idriis iyo hooyadiisana mar labaadaa loo soo wacay. Zahra way u sheegtay dhibku muxuu ahaay, wax walbana way fahansiisay. dhib male Zahra, Idriisaa dhahay. waa ogahay inuu qalbigaa fiican yahay oona ka wadin. waa ku cafina, mar walbana saaxiiba ahaaneena. Zahra maxay dareentay inay fiican tahay, wayna aragtay inuu Idriis saaxiib fiican yahay. raali iga noqo Idriis, mar labaad ma sameynay. ilmahani waa u sheegaa inay xantada joojiyaan. waxaas wax fiican waaye, dhakhtaradaa dhahday. lamadoodana xidigyaalee siisay. haye macasalaama, ayakana macasalaama, waa mahadsan tahay ee dhaheen. maalinta ku xig Zahra iyo hooyada Idriis maxay go'aansadeen inay ilmaha dhan pizza oo saatar u sameeyaan. macalimadooda ardayda dhan maxay u sheegtay inaa banaanka qado lagu qaybi rabo. Idriis iyo Zahra maxay haayeen baakayaal oo pizza ku jirto. kulligiina yaa rabo pizza wariiri. ilmihii dhan way isfiifiiriyeen, ma fahansaneen wixii dhacay. Zahra iyo Idriis baakayaashay fureen. markaaseetii ilmaha way carfiyeen pizzada saatarka. markaas cunug walba wuu soo orday sidoo jab pizza u soo qaato. pizza wariiri aaday u maadahay, Saaraa dhahday. ilmihii kale dhan maxay dhaheen aadaa uu xunnahay Idriis inaa ku xamaneyni. Idriis Zahra u mahadceli, Zahrane way qosashay. marmar waa maqli rabnaa qof oo qof kala xamanayo, laakiin geesinimo aa u baahannahay sidaa wixii saxa sameyno. qof dhan maro inaa qalbigiis la jibiyo ama kale inuu dadka ka baxsan yahay la dareensiiyo. weligaa ma aragtay ilmaha oo hadal xun sii gudgudbinayaan? adi maxaa sameyn lahayd haddii waxa camalku u dhaco ama kale qof kale lagu sameynayo aragteed?